قدوميها كلها وكيلة الصومال وزير دكتور عبد الظاهر مدحدا faraha badan ee meesha fadhida iyo bulshada qiimaha leh dhamaantiin assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh subax ayaa xafiiskayga waxa soo galay laba hablood oo hablaheena kamida waa Zamira iyo Zuhur waxay sheegeen fakarka ay igu yimaadeen waxaan jeclaan lahaa kaliya inaan fakarkoodii wixii aan ka fahmay u sharaxo dadka hablahani dadkeeni kolkay qaxeen qaaradaha dunida ka dhaceen jaamacaday ka soo wada baxeen waxay la noolaadeen bulshooyin kale bulshooyinka kale waxay leeyihiin dhaqan ay ku wada nool yihiin bulshadooda mid dhimirka ka jiran iyo mid jismiga ka jiran mid wax baranaya iyo mid fakhriyaba mid madaxa iyo mid loo taliyo haddii ay dalka fasax u yimaadeen waxaa ishoodu ku dhacday qayb bulshada ka mid ah oo dayacan oo siday sheegayeen hareeraha laga dhaafayo iyo koy ka muuqato duruufo adag inkastoo xanuunka dhimirku horta qofku waa hal qof ma kala aha 9 xubnood oo kala duwan ma marka hadduu isha ka jiran yahayna waa jiran yahay hadduu wadnaha ka jiran yahayna waa jiran yahay hadduu dhimirka ka jiran yahayna waa jiran yahay laakiin qofku waa qofkii magacu waa magacii abtirsiyihi waa abtirsiyihii bini aadamnimadu waa bini aadamkii maxamed baa wuxuu yiri erey aad ii taabtay oo ah ilaahay baa karaameeyey marka marna bini aadamnimadii kama baxayo xanuun kasta oo qabo karaamadiina lumin maayo wax kasta oo qabo habluhu hadday la sheekaysteen dadkoodii hadday dhaqankii halkaan dirseen dhaqankii xagga dirseen waxa u muuqday wax badan oo ku wanaagsannahay waxa u muuqday wax badan oo ku qalloocannahay halkay ka yimaadeenna waxa uga muuqday wax badan ay ku wanaagsan yihiin iyo wax badan ay ku qalloocan yihiin damqasha gashay in bulshada nooca u tabaalaysan wax loo qaban karo intay dayuurad soo qaateen oo hay'ado lacag ka soo qaadeen siday aniga ii sheegeen shandada lacaga lama ay soo degin oo ay u qaybiyaan dadka noocaas intay hay'ado u tageen oo ay dawooyinka dhimirka soo qaadeen inay isbitaalada ugu geeyaan oo ay dadka u qaybiyaan uma imaan maxay u yimaadeen haddaba waxay u yimaadeen sida ii sheegeen inay shakhsi kaste oo bulshada ah ay gaaraan kay internetka ku gaari karaan kay miidiyaha kale ku gaari karaan kay xafladahan oo kale ku gaari karaan kay wadada iyagoo soconaya ay guri u geli karaan oo maxay ka doonayaan inay bulshada ku wacyigeliyaan in qof walba xil ka saaran yahay bini aadamnimo ka saaran tahay dadnimo ka saaran tahay in qofka wax loo qaban karo in waxa aad u qabanaysaa hadday adiga kula yihiin ay qofkaas wax weyn leeyihiin wax weyn oo weyn ay leeyihiin oo laga yaababa ficilka yar aad u qabatay inuu ku bogsado inta kaliya ay maqnayd ay ahayd ayuu yimaado marka waxay doonayaan caawa laga bilaabo intayada halka timidna inaan safiiro u noqono oo aan fariinta la qaadno oo aan guryaheena ka bilowno oo aan ubadkeena ka bilowno inaan fahansiino qofka naga mid ah ee dhimirka ka xanuunsan waa maxay bal waxaad qiyaastaan
بروفيسور دكتور حريد هداي تبو نوغا شيكيني لبا ورابا لا سو قبتي ilkaha laga guray qolba qofkii loogu xiray waa laga dhaqaaqay ilaahay baan idin ku dhaarshay naxariista inta la eegbal ka waran ya naxariista inta la eeg qalab baa jira waa qalabku idin sheegayay oo loogu talagalay korontada inuu qaato oo uu bedelo ma aan korontadii sideedii oo uu bedelo oo uu sameeyo waves loogu talagalay inay waveska maskaxda in yar gariirin karaan ay ka qaban karaan inta dabkii la geliyay oo biyo lagu daadiyay ayaa korontadii lagu qabtay bal qofka naxariista loo geystay jaarkaaga xaafadaada caruurtii ayaa isku tagtay dhagxan bay qaateen meeluu galuul ayahay saacad walbaba dhagax baa lala daba taagan yahay caaye magaciis meel uu galana waa la yahay adoo dad ugu xigaana waad ag marto wad ka leexata bal naxariista intaa leeyahay waxay doonayaan inay madaxweynaha u tagaan inay wasiirka u tagaan haddana simona guddoomiye baarlamaanku waa joogaa inuu mashruuc baarlamaanka ya geeyo waxay doonayaan inay ganacsada ugu tagaan oo malaayiin kama rabaan ee qayd yar oo dhaxanta ka dugsado kaliya bal inuu huro oo jannada ku galo waxaan nahay dad muslina muslimnimaduna waxayna faraysaa inaan noqono bulsho isxambaarata gebigeedaba waxay ku dhisan tahay sadaqo sako naxariis qaraabo sokeeye kaliita intaasaa jannada ka xigta waxay doonayaan intaas sidaan ku gaari lahayn inaan jannadii ku galno dadka bini aadamkana aan uga hormarno waxaa ku xiran magaalada Hargeysa boqolaalo dalkan soo halgamay dib badan kaga soo maray say u xoreeyaan silsiladana ku xiran oo guryaha annana aan hooskoodii jiifnoon ku qurux badannahay iyana silsilada ku xiran waxaa jiifo silsilada ku xiran kumanaan noocaas oo kale ah oo dad noogu xiga oo adiguna aad habeen walba cashada ambassador iyo meel walba ka cunaysid kaa dadka kuugu xigayna oo maqaxayaha lagu ag cunayo agtooda maraya isagoo gaajaysan shaqadii iyo xirfadii uu qabsan lahaana ay dhimirka ka xanuunsan fariinta nuxurkeedu ha dhibin qofka dhiban waxaa ku lamaan haddaadan dhibayn wax u qabo